صلى النبي صلى الله عليه وسلم فضلنا ولا فربنا فائدنا ولا فائدوين كيس waxa kamida toddobadan arimood marka u horeysa qofka nabiga ku saleeyaa wuxuu faa'iideeyaa ilaahay amarkiisa inuu qaato ajrigi allana uu helo akhlaaqdi ilaahay iyo malaa'igtana uu qaato ilaa nabigu wuxuu takhalluqu bi akhlaaqillah ilaahay akhlaaqdiisa qaat ilaahay iyo malaa'igtiisi way ku saleeyeen marka hadaynu inaguna ku saleeno rabbi baynu ku raacnay iyo malaa'igtiisa waxa uu qofkii faa'iideeyaa inuu 10 jeer ilaahay ku saliyo qofka nabiga ku saliyay sallallahu alayhi wasallam ilaahay malaa'ig ilaahay saligiisuna waa inuu naxariisanayo adoonka ama uu amaanayo الثناء عليه في الملأ الأعلى بين أيمada qaarkood caalamka kore ayuu ilaahay ku amaanaya iyo malaa'igta dhexdooda marka inuu ilaahay ku amaano 10 jeer ama uu ku naxariisto wax weyn weey waxa labaadoo lagu helayaa shafaacada nabiga sallallahu alayhi wasallam oo abaal aynu ku qabno qofka markuu muadinku aadaamo intuu yiri oo kala ka daba yiraahdo igu saliya halat lahu shafaacati shafaacadayda u sugantoo waajibtay buu nabigu alayhi salaatu wasalaam waxa ka faa'iido hamigu ilaahay kaga yareeyaa qofka humuum badan baynu xambaarsanahay waxba inagu si ah culaysyo badan baa dadka saaran iyo diiqado waxyaabaha ilaahay uu ku fududeeyay ayuu kamid yahay saliga nabiga asxaabigi Ubay ibn Ka'b markuu nabiga ku yiri waqtigayga saligaagan ku qaadan hamigaaga la kaafiib hamiga laga dul qaadi waxa afraado aynu kaga ka faa'iideynaa waa sabab liqurb al-abd minhu yawm al-qiyamah adoonka uu ka sali badan yahay buu nabiga ugu dhowiyay maalinta qiyaamaha awla an-nas bi yawm al-qiyamati aktharuhum alayya salah وحديث صحيح الترمذي كسوغان maalinta qiyaama cid ay igu dhawi waa cid ay igu salli badan buu nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa shanaad oo ka faa'iido ah waa sabab raddi rasuul sallallahu alayhi wasallam fi raddihi waa inuu nabigu ka qaado ay sabab noqonaysaayo mar qof kasto ay igu salliyo buu nabigu salligiisa markuu igu salliyo ilaahay ruuxdaydu ii soo celinaya ana ka qaadaya ومركا النبي صلى الله عليه وسلم سيغا كو جوابيا روايه كلا وحيد اما حديث كلا اسغنا صحيحه ان لله ملائكه سياحين في الارض يبلغوني السلام من امتي ملائكه دولك wareegaysa buu ilaahay leeyahay oo qaabilsanuun inay salliga ummadu igu saliyaysa aniga ay soo gaarsiiyaan xadiidkaasina waa saxiix fawaidka waxa kamida ducadaada in la aqbalo waxyaabaha caawinayu kamid yahay inaad salliga ku soo khatinto waxitaamu misku ninba ducaysay ayaa tukanayay ilaahayna ma amaanin nabigana kuma saliin nabigu wuxuu ajil hada kani uu degdegay wixii ducadiisa lagu aqbali lahaa muu yeelin isna waa saxiix waxyaabahaas maalinka jimcaha inaynu sii badino nabigu calayhi salaatu wasalaam iyadana wuxuu inoo sheegay in warbixin lagu siinayo salliga aygu saliyaysan badiya maalinka jumcaha fa inna salatakum ma'rudatun alay hadithki sahih abi daawud ku sugnaa salligiin waa la ardinaya meel kasta caalamka joogo telefoonada ilaahay baa nabiga ku rakibeen hebel baa kugu saliyay hebel baa kugu saliyay hebel baa kugu saliyay taasay ugu soconaysa marka faa'iidooyinka iyo kuwa kale oo badan ayuu leeyahay waa adkaarta ama dhikriga ugu fadli badan weeye dhikrigeena yawmiga ah gelinka hore iyo gelinka dambe aynu akhriyayno صلى النبي يسوع 10 jeer buu la socdaa sallallahu